Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa dalka Koonfur Afrika waxa uu uga qayb galay munaasabad lagu weyneynayo toddobaadka xorriyadda. Faafahinta warkan waxaa dalkaasi inooga soo diray Cabdullaahi Dasar. رئيس الوزراء هنا الصومالي بروفيسور علي محمد جيدي isla markaana lagu weyneynayay konton sagaal guuradii ka soo wareegtay xornimadii Soomaaliya ayaa waxa lagu qabtay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Xafladda oo ay soo qaban qaabisay jaaliyadda Soomaaliyeed magaalada Cape Town ayaa waxa ka soo qayb galay bulshada dhinacyada kala duwan. Inta ay socotay xafladdu ayaa waxa lagu soo bandhigay suugaan isugu jirtay gabayo iyo heeso wadani ah. رئيس الوزراء نمدي سوماليا دولتي كمال gaarka ahayd Soomaaliya hal meel hawada jeesato lahaa mucaarab kuma noqon dawlad kasta oo soo martay Soomaaliya taasina waxay cadeynaysaa inuu Cali Maxamed Geedi yahay geesi Soomaalinimadu ay ka go'an tahay ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi ayaa la hadlay bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadda waxa uu uga mahad celiyay sida ay ugu soo dhaweeyeen Cape Town. Abdullaahi Ibrahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika.